muddo sanad ka badan Soomaaliya waxay la rafanaysaa qabashada doorashooyinka heer federaal. In ka badan 3 jeer waxaa lagu fashilmay in la dhaqaajiyo ama la dhaqan geliyo jadwal ay soo saareen madaxda heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleed. tan iyo bishii Julaay ee sanadkan waxaa la awoodi waayay in la dhammaystiro doorashadii aqalka sare oo ay weli 2 kursi ka dhiman tahay. dhawaan waxaa lagu garab bilaabay doorashadii aqalka hoose balse iyadana 2 kursi ayay joogtaa hadda. dhammaan dhinacyada saamaynta ku leh mashruuca doorashada ayaa jahawareer ka muuqda. wakiilada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ayaa shalay soo saaray fariin qayladhaan ah iyagoo dalbanaya in si degdeg ah loo qabto doorashooyinka oo si xooggan dib ugu dhacay. Mareykanku si gooni ayuu shalay ula hadlay madaxda maamul goboleedyada isagoo ugu baaqay in doorashada ay fasaxaan oo la bilaabo tartanka kuraasta golaha shacabka. haddaba shacabka Soomaalidu waxay isweydiinayaan waa qoladee cidda hortaagan inay doorashadu qabsoonto. 4 garab oo ay qusayso arrintan ayaa durba ku soo dhacaya dadka waxaana u kala qaadaynaa sheekadan qolo walba iyo doorkeeda dadaalka ay wado iyo cidda xagal daacinaysa doorashada. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ah mas'uulka ugu weyn ee xil saaran inuu dalka doorasho ka qabto waxa uu muujiyay dareen iyo dadaal togan. hawshu ma ahan mid uu kaligii dhammayn karo, waa isku tolan oo waxaa kaalinta ugu weyn ku leh madaxda maamul goboleedyada. wuxuu dhowr jeer maamulada weydiistay inay soo dhammaystiraan doorashada aqalka sare. cagajid dheer kadib galmudug oo kaliya ayay hadda 2 kursi oo aqalka sare ah ku dhiman tahay kuwaas oo la filayo inay dhawaan soo saaraan magacyada tartamayaasha. Ra'iisul Wasaare Rooble wuxuu gacan weyn ku lahaa doorashada reer waqooyiga. waxaa lagu bogaadiyey inuu dadajiyey doorashadii aqalka sare ee reer waqooyiga haddana uu bilaabay midii golaha shacabka. dhowr jeer oo ay wakiilada caalamiga kala hadleen arrimaha doorashooyinka wuxuu Rooble muujiyey baahida loo qabo inay maamuladu la fahmaan in aad loo daahay oo lagu qasban yahay in degdeg loo dhammaystiro geediga doorashada. kaalintiisa marka la eego waxaa loo arkaa Rooble qofka ugu badan ee juhdi ku bixinaya qabsoomidda doorashada. 2 Farmaajo. madaxweynaha muddadu ka dhammaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo la sheegay inuu weli wax diidan yahay oo uu rabo inuu dadka tuso inuu muddo kororsi qaadan karo daahitaankuna uusan dhib ku haynin, haddana isaga eed badan looma jeedin karo maadaama uu fagaaro ku wareejiyey maamulka doorashada. weli saameyn xooggan ayuu ku leeyahay maamul goboleedyada qaar. cagajidka weli laga soo warinayo waa uu ku daaran karaa maamulada ay isku kaamka yihiin. 3 mucaaradku doorashada ma maamulaan, kaalinna kuma lahan inay degdegto ama ay dahdo. inkastoo qaarkood ay dhaqaale darro ku dhacday oo ay rabi lahaayeen in xaaladdan lagu sii jiro si ay u raajiciyaan haddii ay dhaqaale soo heli karaan ama ay maalmo ugu sii daaqi karaan magaca musharax madaxweyne, haddana dhinaca kale mucaaradku waxay ku guulaysteen inay joogteeyaan fariimaha ay ku dalbanayaan in doorashada degdeg loo qabto. 4 maamul goboleedyada. madaxda maamul goboleedyadu waa gacanta ugu weyn ee geediga doorashada. nin walba dan gooni ah ayaa uga dhex jira mashruuca. qaar waxaa haysta walwal ku saabsan sideed madax u sii ahaan doontaan farmaajo kadib. qaar waa lacag raadis oo waxay xisaabsanayaan imise lacag ah ayaad ka samayn kartaan doorashadan. qaar waxay raajicinayaan in la daalo oo la daaho kadibna lagu qasbanaado in hal deegaan doorasho iyo erga kooban la qaato. qaarna damac heer federaal ah ayaa ku jira oo waxay raadinayaan saacad ay fursadoodu caqligal tahay. dood la'aan madaxda maamuladu waa cidda ku fadhisa dhaqaajinta mashruuca doorashada. inta ay raajicinayaan ama ka walaacsan yihiin danaha aan soo sheegnay waa adag tahay inay doorashadu degdeg ku dhacdo. Ra'iisul Wasaare Rooble, xubnaha beesha caalamka, midowga musharaxiinta mucaaradka iyo cid walba ayaa madaxda maamulada ka dalbatay inay doorashada ka fuqaan, laakiin kama jawaabin baaqidaas. dhinaca beesha caalamka waxa ay muujiyeen heegan 100% ah, laakiin ummad u diyaarsan inay doorasho qabsato uma jeedaan, waana sababta ay dib isugu dhigayaan ayay leeyihiin siyaasiyiinta danaynaysa in doorashadu degdeg ku dhacdo. Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah xubnaha sanadkan u ordaya xukunka sare ee dalka waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in shacab iyo dowladba aan la aqoonin xilliga ay doorashadu dhacayso. shacabka Soomaalidu badi waxay sugayaan xilliga ay madaxda maamul goboleedyadu jidgooyada ka qaadi doonaan doorashada oo ay bilaabi doonaan doorashada kuraasta golaha shacabka. maxay kula taadiga